Once again, if any female on the planet has a problem with me, mar kale ayaan leeyahay haddii ay jirto haweeney dunida dusheeda saaran oo aniga dhibaato igu qabta waxaan kula talin lahaa inay booliiska u tagto oo ay dacwayso iguna soo eedayso dambiyo ninkan wuxuu ka mid noqday dadka ugu saamaynta badan dunida looguna hadalhaynta badan yahay Andrew Tate ayaa hadda Romania looga soo oogay dacwado isugu jira kufsi ka ganacsiga dumarka iyo maalgelinta koox dambiilayaal ah oo hubaysan si ay dumarka uga faa'iideystaan walaalkiis iyo laba saaxiibadiis ah ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo dhammaan waa ay diideen eedeymaha ninkan isku sheegay inuu dumarka necab yahay ayaa caan noqday kadib markii laga saaray barnaamij uu qayb ka ahaa ee lagu magacaabo Big Brother sanadkii 2016 kadib markii la sii daayay muuqaal uu muuqday inuu weerarayo haweeney waxa uu sheegay waqtigaas in muuqaalka uu ahaa been abuur oo la isku dayay in isaga laga dhigo qof xun 36 jirkan ayaa ku faanay in ka badan 6.9 milyan oo qof ay ku taxan yihiin bartiisa Twitter-ka muuqaaladiisana ay gaareen caalamka oo dhan Tate magaciisa oo saddexan uu yahay Emory Andrew Tate waxa uu dhashay December 1986 waxaa lagu magac daray aabihiis oo u shaqayn jiray ciidamada cirka ee Mareykanka hooyadiis iyo aabihiis waxay ku kulmeen Ingiriiska ka hor inta aysan u guurin Mareykanka halkaas oo Tate uu ku soo koray tani markii ay waalidkii kala tageen furiinka kadib Tate wuxuu u guuray Ingiriiska isaga iyo hooyadiis Tate iyo walaalkiis ka yar Tristan labaduba waxa ay sheegeen in Ingiriiska ay kala kulmeen nolol faqri ah Tate waxa uu ka soo muuqday muuqaalo badan isaga oo soo bandhigay qaab nololeedkiisa taajirnimada ah baabuurtiisa raaxada diyaaradihiisa gaarka loo leeyahay wax yar ka hor inta aan la xirin waxa uu sheegay inuu haysto 33 baabuur muuqaalada TikTok lagu baahiyay ee magaciisa wata ayaa la daawaday balaayin jeer tiradaas waxaa kale oo ka mid ah fiidiyowyada ay sameeyeen dadka dhaleecaynaya saameyntiisa waraysi uu bixiyay ayuu ku sheegay inuu dumarku necab yahay wuxuuna ku daray aniga waxaan ahay qof runta ka hadla isla muuqaalkaas wuxuu dumarka ku tilmaamay inay yihiin kuwa caajis badan wuxuuna sheegay inaysan jirin wax la yiraahdo haweeney madax bannaan meelo badan oo warbaahinta bulshada ah oo ay ku jiraan YouTube Facebook Instagram iyo TikTok ayaa laga mamnuucay iyaga oo tilaabadooda ku sheegay in hadalladiisa ay yihiin fikrad nacayb ah oo aan loo dulqaadan karin